agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqankii wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland ayaa qalab warbaahineed kala wareegay hay'adda Median Inc. qalabkan oo noocyo kala duwan ah ayaa lagu talagalay xarunta tababarada saxafiyiinta oo kamid ah waaxda wada xiriirka qaranka ee wasaaradda warfaafinta. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda wada xiriirka qaranka ee wasaaradda warfaafinta Jaamac Aadan Maxamed oo ka waramay muhiimadda qalabkani u leeyahay tababarka saxafiyiinta. xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland waxaanu maanta ku qaabilnay agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeedada iyo saxafiyiinta rugcadaaga ah hay'adda ama aan idhaahdo guddiga boardka maxadka tababarka saxafiyiinta Somaliland waxaan ku qaabilnay hay'adda loo yaqaano Media Inc. oo halkan maanta nagu wareejinaysa qalab loogu talagalay maxadkaasi oo ka kooban noocyada kala duwan ee ay warbaahintu adeegsato sida kombiyuutarro casri ah, kamarado noocyo kala duwan iyo runtii alaabooyin kala duwan oo runtii muhiim u ah aqoonta saxaafadda iyo guud ahaanba tababaradooda sidii ay ugu qaadan lahaayeen. runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa. wayab oo ah rugcadaas saxaafadeed isla markaasina kamid ah macallimiinta xarunta ayaa soo dhaweeyay qalabkan ay la wareegayaan. arrin loo baahnaa muddo dheer in la furo ay ahayd oo laakiin maanta ku soo hagaagtay nasiibna uu helay inuu Mustafa arrintaas dhaqaajiyo oo fuliyo. aad baan ugu mahadnaqaynaa marka hore anagoo aan niman maartay muddo dheer soo shaqeynay saxaafadda soo dhex jiray runtii wax nagala haro oo intaan aan kolka xilligii baan u dhownahay waa loo baahan yahay inaan dhalinyarta yaryarada imka soo kacaysa ee saxaafadda ku jirta in wuxuuna ay nagala haraan intaanaan mootay waqtigeeni walba kulli maalin buu dhimanaya. marka runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa iyadoo maanta wixii la bilaabayo oo intaan rabadaan aanay dhamaanin aan doonay la bilaabo sidoo agaasimaha guud noo sheegay. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Cabdulqaadir oo ka socda Media Link ka socda oo qalab fara badan noo keenay oo kombiyuutarro iyo kamarooyin isugu jira. waxaan insha Allah rajaynaynaa inaanu intaan nooga ekaysinay inuu nooga soo kordhin doono mustaqbalka dambe. Cabdiqaadir Axmed Cabdi oo agaasimaha hay'adda Median Inc. oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda warfaafinta ay muddo dheer wada shaqeyn lahaayeen haddana ay ka qayb qaadanayaan hirgelinta xarunta tababarada saxafiyiinta Somaliland. anigu qalabkan aan guddoonsiinay maanta runtii waxa iga farxad badan in xaruntii loo xulay dadkii ugu munaasabsanaa xaqiiqii saxaafadana in badan ku jiray wayab iyo Faysal iyo Xaddi waxaan isleeyahay maanta cid kaga munaasabsanaa oo xarunta runtii loo xuli lahaa ma jirin. aqoontuna waa shay aad iyo aad muhiim u ah nolosheena muhiim u ah haddaynu doonayno mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba inaynu wasaaradda wax ka bedelno saxafiyiinta dalka waxaynu ka bedelno aqoontu waa shay laga maarmaan ah. marka qalabkan aynu keenno maanta insha Allah bilowgii ma aha wasaaradduna runtii support aanu siino bilowgeedii ma ahano support kale oo inta ka duwan wasaaraddu hooseynay. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland Mustafa Cabdi Ciise ayaa uga mahadnaqay hay'adda Median Inc. qalabkan ay ugu deeqday xarunta tababarada. sidoo kale waxa uu agaasimuhu ku dheeraaday baahida xilligan loo qabo hirgelinta xarunta oo la rajaynayo inay wax badan ka bedeli doonto warbaahinta Somaliland. ujeedada aan u asaasayno xarunta tababarka saxafiyiinta Somaliland waxa weeye markii la arkay baahida ka jirta dalkeena markaanu aragnay in jaamacadihii dalka ka jirayna aanay ku dhiiranayn marka inay kulliyadda saxaafadda ama faculty saxaafadda ay dardar geliyaan ama ay noqotay inay soo saaraan dad cusub oo marka ay ka baxaan dib loo arag. waxaanu jeclaanay in dadkii gacanta shaqada ku hayay marka hore talentkii saxaafadda lahaa ee u soo halgamay in dad ku soo dhex jiray in iyaga wax la baro. marka macadkan wuxuu ka bilaabi doonaa marka hore inuu dadka shaqada gacanta ku hayo laba siyaabood u shaqeeyo theoretical inuu wax baro practical inay ka caawiyaan macallimiinta boardka hay'adihii warbaahinta ee u tagaan mid walba la joogaan muddo ku filan si tayada dadka gacanta inoogu hayo media sare loo qaado. indhowdooda ogeyn warbaahinteenu waxay halis u gashay inay qaranimada Somaliland burburiso waxay kala garan waayeen warbaahinta cid ay u shaqeynayaan
wadogtiino waxa laga dhaadhiciyay wariyaasheen qaar ka mid ah inay yihiin wariyaal Soomaaliyeed Soomaalina wax isku jira maanta ma ahay shantii Soomaaliyeed way isu iman kari weeyday isku daygii 26 Juun 1960 ee reer Soomaaliland bilaabeen way fashalatay marka nin walba gurigiisii uu ku dib ugu noqday Djibouti waa dawlad gaar ah oo nin Soomaaliyeed madaxweyne ka yahay laakiin waa dawlad gaar ah ma aha inuu inagu riixi karo ama cid kale inagu riixi karto inay inaguna Soomaaliya ka simid ahaan iyana ka maqayn kilka shanaad waa dawlad gaar ah oo dawladii Itoobiya ka mid ah marka ninka saxufiga Soomaaliland jooga waa saxufi reer Soomaaliland ma aha saxufi Soomaaliyeed waa saxufi reer Soomaaliland luqadda waa luqad Soomaali aan ku wada simanaa intooda badan lahjadda ku kala duwanaano dalka la ku kala leenahay marka wariyaashani waxay u baahdeen marka in la baro horta aqoon ahaan la dhiso waxaanu aragnay waxyaabaha kalifay inay reer qaar ku hadlaan inay tahay in aqoontoodii saxaafadeed iyo tii maadiga caadiga ahayd aan dhisnayn marka si general knowledge-koodii iyo aqoontii saxaafadda loo dhiso in macadkan aanu abuuro tan labaad waxay faa'iido nooga tahay in macallimiinteedii maanta iyo xiriir fadhidaa in wax kala hadno waa run way kale aniga waxa la oran jiray miyuu ku dhalay maanta anigii waa gaboobay marka waxaan u baahanahay in way intaanu naga tagin iyo Faysal iyo Xadi iyo Xuseen Caalun rag la midka iyo xagar iyo inaynu kala hadno waxay ay hayeen iyaguna ay dadka tagaan inay dadka tagaan oo ay aqoon ka tagaan ayaanu insha Allah rajeynaa marka arinta saas weeye waxaan ku socotaa waa go'aankii wasaaradda warfaafinta oo gudoomay wasiirka wasaaradda warfaafinta annagoo technical teamkeena aanu gacanta ku hayno shaqada aanu wadayno saasaan marka meesha rajeynaa insha Allah weekend soo socdana waxaan rajeynaa marka xaruntii oo aanu ku wadno dib habeen iyo qaabeyn iyo dhismo inay dhamaato isla maalmaha soo socday markii gabagaba inaanu xafiiskii dabeena aan furitaan rasmi ah oo ama wasiirka ama cid uu isoo markaa u yeeray oo ka sareysa inoo furto aynu sameyn doono insha Allah 2025 na waxaan rajeynayaa sidaan ku wadnay inay noqoto macadkii saxaafadda Soomaaliland waa dhulkiina oo noynaa qalabkiina oo noynaa budgetkiina oo noynaa marka waxaan rajeynayaa inuu ka faa'iideyno xukuumadda maanta joogtana waxay u noqonaysaa sharaf in markii ugu horeysay 32 sano la abuuro macadkii tababarka Soomaaliland marka dambe kulliyad isku bedelo dawladana ay noqoto cid iyadoo abuurtay wasaaradda warfaafinta uu ka tirsan yahay macadkaasi marka saasaynu wadnaa marka aad baan kaaga macdinay qalabka aad nagu wareejisay odayaashan maanta waqtigooda siinayay aqoontoodana iyana aad baan uga mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maxamed wardi warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa